Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada daawashada filimka gaaban ee lagu magacaabo The Black Hole. Haddaynu soo koobno nooca filimkan iyo khibradda uu xambaarsan yahay, guud ahaan filimkani wuxuu ka mid yahay filimada lagu magacaabo science fiction. Filimada ama afkaarta science fiction-ka ahi waa aragtiyaha iyo sahanka lagu helay daabacadaha 3D-ga ah, garaacista ama wada hadalka maqal iyo muuqaalka ah, hindisaha iyo samaynta gawaadhida iskooda isu wada iyo kaararka lagala baxo lacagta baananka adduunka. Sidaa daraaddeed, science fiction-ku waa cilmi sayniska iyo tiknoolajiyadda la hormariyay iyo malaawaalka dabeecadaha mustaqbalka. Filimkuna waxa uu ku bilaamayaa sidan. Ninkan aad arkayso ayaa waxa wax ku daabacayaa printerkan horyaala. Isla markaasina printerkii ayaa waxa uu muuqanayaa mid ciladaysan, waxaana uu ku dhufanayaa laab hoose. kabacdi waxa uu soo daabacayaa warqad dhexda kula goobaaba madow. Uu soo qaadayaa waa uu la ama kaagaya. kabacdi waxa uu dul saarayaa printer kale. waxa uu furayaa printerka qaybta iskaanka, waxaana uu arkayaa inaysan warqado ku jirin. in yar kabacdi waxa uu soo qaadanayaa cabitaan yar. marka uu dhamaysto cabitaankii ayaa waxa uu surayaa koobkii iska dhig, isla markaasna koobkii ayaa waxa uu ka dhex baxayaa warqadii halkii madoobayd, waxaana uu ku dhex dhacayaa printerka. waa uu yaabayaa, waxa uu eegayaa waxa dhacay. waxa uu ku tijaabinayaa warqadii halkii madoobayd gacantiisa. mar labaad ayuu ku celinayaa, waxaaba dhex gelaysa gacantiisii. wuxuu soo qabanayaa koobkii ku guda dhacay printerka. waa uu ama kaagay, waana uu la yaabay. koobkii buu iska dhigayaa, warqadii ayuu qaadayaa, waxaana uu ku tijaabinayaa si uu u xaqiiqsado gacantiisa. wuxuuna arkayaa inay ka dhex baxayso. isla markaasi waxaa ku dhalanaysaa fikrad ah inuu xado. waxa uu arkayaa talaagad halkaa taalla oo loo ku xidhan yahay. isla markaana waxa uu dul saarayaa warqadii talaagadda intuu hareeraha iska eego. waxa uu ka soo dhex saarayaa talaagadda chocolaatada Snickers. waa uu ama kaagay, wuuna la yaabay. isla markaasina waxa uu cunayaa chocolaatadii uu kala soo baxay talaagadda. in yar kabacdi ayaa waxa ku dhalanaysaa fikrad kale. meheradan uu ka shaqeynayay ayaa waxa uu damcayaa inuu galo qolka khasnada lacagtu ay taalo. qolkii ayaa wuxuu dul saarayaa warqadii, isla markaasina uu iska furayaa. layr ku shidaya. kadibna waa uu dhaqaaqaya, waxaana uu dhaqaaqayaa dhinaca iyo khasnada. uu dul saarayaa warqadii, isla markaasina waxa uu ku eegayaa bal gacantu inay ka dhex baxdo oo uu gaadho lacagta, waana uu gaadhay. kabacdi lacagta ayaa uu soo fadhayaa, marba marka ka dambaysa. waa uu soo fadhayaa. in yar kabacdi marka uu cabaar fadho lacagtii ayaa waxa fogaanaya lacagtii uu soo fadhayay, isla markaasina uu gaari waayaya. wuxuu samaynayaa inuu isku dayo inuu asagu galo si uu soo saaro lacagta gudaha taala. nasiib daro, warqadii uu dul saaray khasnada ayaa waxa ay ka dhacday meeshii uu ugu talagalay. halkaasi ayaana uu ku guuldaraystay. haddaba daawade, dulucda iyo faa'iidada filimkan ayaa waxa ay tahay haddii ilaahayna gaadhsiiyo mustaqbalka dhow iyo tiknoolajiyadda adduunka in la gaadhi karo ashyaa u shaqaynaya sida warqadan oo kale. isla markaasina haddii aad istiraahdo hawl ku fuli ayna ka dhaqaaqaan halkii aad ugu talagashay, amaba si ay cilladi ku timaado aad ku dhex xayirmi karto hawshii aad waday. haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo boqoto channelkeena, fadlan ha hilmaamin inaad subscribe saarto si ay kuu soo gaadhaan muuqaallo intan ka badan. wassalaamu calaykum.